Dowladda Sacuudiga ayaa wada khaarijinta muwaadiniin Soomaaliyeed maanta ayaa ugu dambeysay oo laba ka mid ah ayay qoorta ka goysay, waxaana hadda usii dhiman dad kale oo Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah. Haddaba si dowladda Soomaaliya arrintan ay wax uga qabato isla markaana loo badbaadiyo dhalinyarada kale ee Soomaaliyeed, muuqaalkan sii gudbi, like share garee, lana sii wadaag asxaabtaada. Soo dhawaada. Sida aad ogtihiin, dowladda Sacuudiga ayaa xukun dil ah waxay ku riday dhalinyaro Soomaaliyeed kuwaas oo ay ku eedeysay in ay qayb ka qaateen soo gelinta waxyaabaha maanka duuriya oo guud ahaanba mamnuuc ka ah gudaha dalka Sacuudiga. Dowladda Sacuudiga ayaa sheegtay in dhammaantood ay qoorta ka wada goynayso, taas oo dowladda Soomaaliya aysan ku baraarugsanin. Haddii ay ku baraarugsantahana aysan wax tallaabo u qaadin badbaadinta dhalinyaradaasi Soomaaliyeed ee aan rabno in inta harsan loo kaco, dowladda iyo shacabka Soomaaliyeedna ay ka dhiidhiyaan. Waxaa muhiim ah in dowladda federaalka, gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda cadaaladda oo iskaashanaya, in arrintan ay ku baxaan, isla markaana safiirka Sacuudiga iyo madaxdooda arrintan lagala hadlo oo aan kuwa dhiman qoorta laga goynin ama aan la toogan. Waxaa mamnuuc ka ah dalka Sacuudiga in la geliyo guud ahaanba muqaadaraadka ama waxyaabaha maanka duuriya, waxaana dhacdo ciddii lagu arka in dowladda Sacuudiga ay qudha ka jarto ama ay qoorta ka goyso. Maanta laba ka mid ah dhalinyaradaasi oo lahaa mustaqbal aad u wanaagsan, ha yeeshee dhacdadaasi ay ku dhacday oo gudaha dalkaasi la sheegay in ay geliyeen waxyaabaha maanka duuriya, ayay qoorta ka goysay. Dowladda federaalka ee Soomaaliyana way ka aamusan tahay. Haddaba taasi sax ma ahan, oo dowladda waxay dowlad u tahay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka iyo dibaddiisa, waana in ay ku baxdaa xaaladan aan rabno in wax laga qabto. Haddii aan iskaashano, aniga oo muuqaalka soo gudbinaya iyo adiga oo aan rabo inaad sii share gareyso, waxaan sabab u noqon karnaa in dowladda federaalka Soomaaliya ay gaarto fariinteena, isla markaana muwaadiniinta kale ee qaybta naga ah ee xukunka dilka ah dowladda Sacuudiga ay ku riday, ha yeeshee qaar ka mid ah ay fulisay, qaarna ay harsan yihiin, laga hortagi karo. Waxaan rajeyneynaa in dowladda federaalka Soomaaliya ay hurdada ka kacdo, isla markaana ay tallaabo u qaado dhalintan Soomaaliyeed, xitaa haddii ay muqaadaraad geliyeen gudaha dalkaasi, mamnuucna uu ka yahay. Waxaa wada hadli kara oo arrintaasi ka wada xaajoon kara labada dowladood. Haddii mar kale uu ku soo gaaro muuqaalkeena, sii gudbi, like garee, share garee oo la sii wadaag asxaabtiina.